gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo maanta shir gudoominaya fadhi ay lahaayeen mudanayaasha golaha guurtidu ayaa markii uu gudoomiyuhu furay waxa uu mudanayaasha ku wargeliyay in ay maalinta Isniinta ka soo qayb galaan khudbad sanadeedkii dastuuriga ahayd oo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi u jeedin doono labada gole ee guurtida iyo wakiilada. Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida ayaa waxa uu mudanayaasha ku adkeeyay in ay waqtiga ilaaliyaan isla mar ahaantaasina maalintaasi ay ka soo qayb galaan isagoo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii waxa ka mid ahaa saal dambe haddii alla yidhaaho Isniinta madaxweynihii baa imanaya golayaasha khudbadiisii sanawiga ahayd ee uu xaaladda dalka kaga warramayay weeyi waa inoo Isniinta berrito ha laga shaqeeyo meesha tan ee u faaruqiya dumarka ka shaqeeyeen waa inoo Isniinta haddii alla yidhaaho waqtigeenu siimi jiray wariyaha maxamed cabdiraxmaano la weydiin maayo dhaqan baynoo ma ahayn haalin wanaagsan boqor axmed cabdi 5 TV Hargeysa.